magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya waxay fadhi u tahay hay'adaha dawladda waa magaalada ugu dhaqaalaha badan waa magaalada ugu dadka badan sidoo kale waxa degan oo ay xarun u tahay beesha caalamka ee ka howlgasha Soomaaliya magaaladu waxay muddo dheer bartilmaameed u ahayd ururka Al-Shabaab oo ka geysta weeraro badan oo isugu jira kuwa lagu galo hoteelada xarumaha dawladda iyo goobaha kale ee dadweynaha waxa kale ururka Al-Shabaab iyo mararka qaarkood ururka Daacishba ay weeraro ku khaarajiyaan mas'uuliyiin dhinaca amniga iyo dad rayid ah dawladihii kala duwanaa ee Soomaaliya soo maray waxay xilliyo kala duwan isku dayeen inay ka hortagaan weerarada Al-Shabaab dawladda xilligan jirtay istiraatiijiyada ugu badan ee ay xilliyo kala duwan adeegsato waxay ahayd inay xirto wadooyinka taasi oo qorshe ahaan la hirgeliyo ugu yaraan 2 jeer haddana dib loo furay wadooyinka markii ay weeraradu istaagi waayeen haddaba waa maxay xalka nabadgelyada magaalada Muqdisho sidee ayaa weerarada Al-Shabaab lagu joojin karaa ama ugu yaraan hoos loogu dhigi karaa inkastoo magaalada Muqdisho ay tahay tan 99% weerarada Al-Shabaab ay ka dhacaan haddana ma jiraan tallaabooyin ama qorshayaal amni oo ay sameeyeen magaalooyin kale oo cashar laga baran karo waa mawduuca barnaamijka galka baarista ee toddobaadkan dadka amniga u kuurgalaa waxay sheegeen in caqabadaha haysta magaalada Muqdisho ee amni xumada ah ay sabab u yihiin dhowr waxyaabood oo ay ka mid yihiin inay liidato wada shaqaynta dadweynaha iyo ciidamada amniga in kooxaha weerarada geysanaya ay ka howlgari karaan xaafado kala duwan oo magaalada ka mid ah iyagoo aan ciidanka kala kulmin jawaab adag nidaamka darisaynta magaalada Muqdisho aan shaqaynayn magaalada oo ku furan dhul ballaaran oo ay ka soo gali karaan maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka geysanaya iyo ururinta akhbaarta amniga oo liidata iyo sababo kale Rooda Cabdullaahi Colaad waxay hore u soo noqotay gudoomiyaha degmada Waaberi waxa aan weydiiyay waxa keenay in baabuurta qaraxyada wada ay soo galaan magaalada welibana ay soo gaaraan goobo xasaasi ah oo kooban iyadoo haddana ay jidad ku xiran yihiin wixii haddii ay amniga ku sugnaanayso oo gaariga uusan soo gudbaynin waa wax wanaagsan oo naftii ugu badbaadinayo laakiin taas sida aad arkayso jidadkeena waa xiran yihiin gaariyaashin waa soo gudbayaan waa in dib lagu noqdo la isugu noqdo oo la yiraahdo maxaa qaldan wadooyinku waa xiran yihiin qaarkood gaariyaashin waa soo gudbayaan sida halkan ku imaanayaan waxa aniga ila tahay oo barnaamij ka duwan oo la sameyn karo waxay tahay in hal degmo lagu fiirin karo in la sameeyo waxaan loo yaqaan xeyndaab gated neighborhood oo aan degmada Waaberi ugu yaraan 300 oo daris soo bandhigay steedyada soo caalamiga aad aragtay oo ugu wareejinaya dhagixii oo 300 oo daris ah afar albaab kaliya inta loo sameeyo mas'uuliyadeedina la qaadayo oo meeshaas kaamirooyin lagu dhajiyo gaariga soo galaya gaariga baxayo meel laga monitor gareeyo ee leedahay degmooyinka waliba wadnaha u ah Muqdisho waa afarta degmo loo yaqaan waliyo cadde oo ay degmada hodan Waaberi howlwadaag iyo xamar jajab waana xarumaha dawladda inta ay u badan yihiin haddii loo sameeyo meelaha wadooyinka ay ka soo baxayaan xeyndaabyo daris quality yihiin waxay yareynaysaa gaariga meesha soo dhex maro sababtoo gaariga laamiga markii uu imaanayo oo qaraxa uu samaynayo xaafaduhu kasoo dhex baxaa laakiin dee xaafadaha dhexdooda ma aha meesha ay soo weerarayaan sooma laakiin xaafadaha dhexdooda gaariyaasha waa soo marayaan waa gatay laakiin xaafadaha dhexdooda waxaa ka dhacay dilalkii dawladda ahaa iyo muxuu ahaayey dadkii lagu dhex dilaayo xaafadaha qof dilay waxaad arkaysaa qofkii oo fakaday way mushkiladdu waxay tahay qofku marka uu qof dilo ama baabuurku uu baxo oo meel aado isku qarxiyo waa dhacay falkii oo ama qaraxii ama dilkii way geysteen inta badan markii qaraxa dilka geystaan mar walba waa la ogaadaa baabuurkii iyo cidda iska lahayd marka ka daba tagun bay noqon soo ma ka daba tagay noqonaysa laakiin ka hortagis waxaa noqonayso shacabku waa inay kula shaqaynayaan oo uu waqtiga ugu badan la geliyo shacabka reer Muqdisho uga go'naan lahayd amniga siday ku sugi lahaayeen qaraxyada iyo dadka weerarka geysanaya magaalada Muqdisho waxaa la sheegaa inay badankoodu ka soo galaan dibadda gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan jidka u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye magaalada Afgooye sanadihii 2017 iyo 2018 waxa Al-Shabaab ay ka geysteen weeraro istaba joog ah oo ay ku jirtay dhowr jeer oo ay ciidan ahaan u soo galeen weerarada ka dhici jiray Afgooye in badan oo kamid ah waxa geysan jiray ururka Daacish kuwaas oo u badnaa khaarajin bartilmaameedsan ee xubnaha amniga iyo booliiska hase yeeshee weeraradaasi aad ayay hoos ugu dhaceen sanadkan 2019 inkastoo haddana Afgooye la dhihi karo dhinac kasta waa ay ka soo geli karaan ururada Al-Shabaab iyo dadka wax kharajiye ka tirsan Daacish hoos u dhaca weerarada Afgooye waxay ku soo aaday iyadoo ciidamada militariga Soomaaliya ay Al-Shabaab ka qabsadeen deegaanada Sabiid, Caanoole, Bariire iyo Awdeegle oo dhammaantood ahaa meelaha inta badan ay iska soo abaabulaan Al-Shabaab Cabdinaasir Xaalim Ibraahim waa duqa magaalada Afgooye ma jirto
gaari qarax sida in degmada afguuyo uu soo maro deetana muqdisho u gudbo baabuurta qaraxyada sida ama waxay isticmaalaan deegaanada qardajeexa ah oo in badan iskuma soo dhigaan wadada laamiga kumana dhacaan marka gaari si toos oo isticmaala wadada ama soo mara baraha ciidamada daraawiishta ay fadhiyaan ka gudba magaalada muqdisho u gudbaan ma jiro haddana waxay la narnaantii gacanta ku dhigna qaraxyada waxaanu aaminsanahay in magaalada muqdisho gudaheeda lagu farsameeyo ma ahan qaraxyada kuwa degmada afguuyo soo mara ama wadada dheer ee degmada afguuyo isticmaala gobolka banaadir waxay 15% ku leeyihiin dakhliga ka soo xarooda dekedda magaalada muqdisho dhaqaalaha soo galana waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inuu dhan yahay ilaa 25 milyan oo dollar ugu yaraan laakiin mas'uuliyiin kala duwan oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in dhaqaalaha badankiisa oo u dhiganta ku dhowaad 70% ay ku baxdo mushaar bixin sababtoo ah muqdisho ma maamusho amnigeeda amniga gobolka banaadir waxa uu gacanta ugu jiraa dowladda federaalka laftigeeduna waxay miisaaniyadda inteeda badan ku bixisaa amniga iyadoo ciidamada ugu badanna ay joogaan magaalada muqdisho marka la isku daro ciidamada militariga booliiska iyo nabad sugidda marka aynu eegno magaalada Kismaayo waxaa miisaaniyaddeedu ay u dhowdahay lacagta uu maamulo maamulka gobolka banaadir haddana sidaasi oo ay tahay magaalada Kismaayo waxay in ka badan 50% ku bixisaa amniga Ibrahim Maxamed Yuusuf Timajilic waa duqa magaalada Kismaayo annagu waxaan runtii aan isleenahay waxaad aad u isticmaalnaa xaggan kala jirtay inaanu war helno oo meel kasta oo aan isleenahay khatar baa idinkaga soo socota waxaa badan inaanu war ka helno marka sidaad amniga u sugtid waa inaad sigdoon heshaa haddii aadan sigdoon helin amni ma sugi karayso waayo waxa waaye sigdoonku waxa meeshan ka jira in la ogaado waxa kugu soo socda inaad ogaatid cadowgaagu waxa uu damacsan yahay inaad ogaatid waxa uu maagan yahay inaad ogaatid waawar marka waa iswaafaqayaan sigdoonkaa markaa heshid waxaad galaysaa tabaarushey aad amnigaaga ku sugan lahayd waxaad samaynaysaa haddii wuxuu wax markaas gudahaada ku jira yahay sida aad isaga qaban lahayd marka waxa waaye annagu runtii waxaanu isleenahay waxa waaye waxyaabaha xoogga aanu saaray waa xagga sigdoonka waxaanu isleenahay in 90% sigdoonka aanu isticmaalno waa ku guulaysanaa miisaaniyadiina 100% imisa ayaa gasha amniga haday tahay sirdoon iyo amni kalaba wallahi dhaqaalaha soo gala waxaan isleenahay wax 100% ilaa 60% xagga amniga loo sameeyaa qaybiyeeda kala duwan ama ha ahaato xagga sirdoonka iyo maaragtay magaalada gudaheeda ama ciidamadu maalin walba dagaal ku jira oo dhinacna ilaa degmada Jamaama hadda iyagu joogo dhinacna kooraha kale oo ilaa iyo konton iyo xogaa kilomitir oo dhinaca qorax u dhaca iyo dhinaca waqooyi oo iyaduna ilaa 60 kilomitir ciidanku joogo waa inta degmada Kismaayo baan ka hadlayaa laakiin meelaha Jubbaland waa fara badan tahay laakiin degmada Kismaayo waxa waaye intaasna waa joogaa dhinaca kalena bad baa ka xigta marka annagu waxaan isleenahay insha Allah waa dadaalkeedina Ilaahay waa nagu guuleeyay kadib weerarkii dhawaan ka dhacay magaalada Kismaayo mas'uuliyiintu waxay sameeyeen isbeddello dhinaca amniga oo ay ka mid tahay in ilaalada mas'uuliyiintu ay gali karaan hoteelada si ay gudaha ugula dagaalamaan al-shabaab haddii ay weerar soo qaadaan waxaan isleenahay maalinta haddii ciidan joogi lahaa oo mas'uuliyiintu joogay ciidankii istaafyada ay joogi lahaayeen arrintaas ma dhacdeen marka taxadir badan baa laga leeyahay marka sidee lagu joojin karaa baabuur qarax ku rakiban yahay oo iridda ku dhacaya iyo ciidan ordayo ka soo dabagalaya kadib marka uu argagaxu dhaco sidee lagu joojin karaa sababtoo ah waxaan ku weydiinayaa xeeladan marar fara badan bay isticmaaleen magaalada muqdisho hoteelay ku galeen madaxtooye ku galeen baarlamaan bay ku galeen xarun bay ku galeen maxkamad ay ku galeen meel aysan ku galin male wax xalama u hesheen sida lagu joojin karo labada weerar ee isdaba socda baabuurka qaraxa iyo ka ciidanka waxa weeye nimanku halka baabuur bay wadataa raaymaanka loo baabuur ma ahayn hal baabuur bay ahayn meel lagu ka soo baxay waa ka degeen iyagu markii qarax u dhacayna waa galeen weliba nafidaro waxaa dhar bay wateen ciidan oo dadku waxay u maleeyeen in ciidanka dowladda yihiin dad badan baa ka cararin oo ciidanka dowladda oo sida ay ku laayeen waxa weeye marka horta meelaha laga soo gelayo hoteelada oo markaa jirooyinka hoteelada waxa weeye in meel looga soo jireeyo jirooyinka horta waa la sugay amaankooda baabuurka waa la tuunsanaa
baarid baa ku socotay laakiin meel aan la filayn ka soo baxay baabuurka hadda qaraxa sameeyey waxaan aaminsanahay ma ahan baabuur qaraxa magaalada laga sameeyey magaalada gudaheeda lagu sameeyey barnaamijkaas marka kii Juulaay 12 qaraxa geystay waxaad aaminsantihiin Kismaayo in lagu dhex sameeyey Kismaayo lagu dhex sameeyey Kismaayo lagu dhex sameeyey meelo ka mid ah Kismaayo qalamka qaraxa waa laga yaabaa in siyaabo kale loo soo geliyo laakiin qaraxa waxaa lagu sameeyey magaalada barnaamij soo galay ma baabuur yaroo nooc oo yaryaroo taksiir la yidhaahdo oo hadda magaalada laga isticmaalo buu ahaa waxaan aaminsanahay baabuurkaasna baabuur magaalada laga iibiyey buu ahaa oo qofkiilahaa laga gabay kabacdina shaqadaa lagu qabsaday marka la daba joogaayo hadda baaridii waa socotaa qof noolo hadda iyagii kamida shabaabkii hawsha galana waa hayaa waxa weeye hadda dabaaristii mar hore inaan ka sheekay laakiin waxaan isleeyahay wax badan baa laga ogaa intaa sidii aan hore ugu sheegay mid ka mid ah barnaamijyada galka baarista kontaroolada laga soo galo magaalada Muqdisho ma yaalaan qalab lagu baari karo baabuurta soo galaysa kuwaasi oo sawira xamuulka saaran taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi oo toddobaadkan waraysi siiyay VOA waxa uu sheegay in gulufka military ee ka dhacay Shabeellada Hoose uu yareeyay baabuurta ay qaraxyada ku rakaban yihiin ee soo gala magaalada Muqdisho in aan aad iyo aad uga taxadirin inaan baabuur qaraxsiga magaalada soo gelin waxaan soo jeediyey madaxda international community shanta bridge ee webiga Shabeelle ee magaalada Muqdisho laga soo galo in ciidanku qabsado oo ciidanku ay bridge-yaalkan si aan baabuur qarax wada u soo gudbin arrintaas waa la qaatay dowladda Soomaaliya waa qaadatay international community waa qaadatay Amazon waa qaadatay waa gashantaa bridge waa kuwee shantaa buundo waa kuwee shanta buundo waa mid bala oo markaas aan haysanin mid afgooy tan saliida caanoole tambariire talawdeeda iyo muwaare iyo sanjanaal shantaas bridge haddii la xiro oo difaac xoog loo sameeyo magaalada xamar qarax baabuur soo wada ma soo geli karo way badbaadaysaa magaalada hadduu soo galana waa mid bireer lagu sameeyey bannaan uga yimid maaha waxaana la aaminsan yahay qaraxa inuu ka yimaado dibadda laakiin dhibaatooyin kale oo Muqdisho haysta ayaa ah hanaanka darisaynta oo aan shaqaynayn ama wada shaqayn la'aanta laamaha amniga iyo xaafadaha magaalada Rooda Cabdullaahi ayaa sharaxaysa mar kale waxa ay ka kooban tahay Muqdisho 17 degmo 17 degmo ee Muqdisho degmo walba waxay leedahay waaxiyo wax walbana waxay leedahay laamo laan kastana waxay leedahay tabeelooyinkiina waa guryo isku tagay tabeelaha waxaa lagu tilmaamaa tusaale ahaan haddaan kusoo qaado degmada waa beri oo kale kontonkii guriba waa hal tabeelle waxa ugu muhiimsan oo aniga xilliga aan joogay aan isbihi karo amniga waa lagu sii karaa waxay tahay hanashada shacabka iyo degmada inay isku xirmaan marka aniga waxay la tahay dadka reer Muqdisho waxaa u malaysaa in dadkii si u quusteen oo ay ka quusteen in ay wax qaban karaan oo ay saddex qaybood u kala baxeen kuwa ay u baxeen in amniga Muqdisho aan la sugi karin ay aamineen oo ay quusteen kuwana ay aamineen in haddii ay amniga ka hadlaan waa shacabkan ka hadlayahay ay naftooda dhibaato gelayso kuwana ay yihiinba kuwa qaska wada dadka qaska wada aan laga iyagiiba dadka dhibaateynaa dadka guryaha cusub kiraysanaya ama xaafad soo degaya may badan yihiin bishiiba ilaa imise qof oo cusub baa soo degta degmadii ama sida aad sheegtay tabeelihii oo kale kontonkii guri degmooyinka way kala duwan yihiin degmada waa beri oo kale waxaad arki kartaa guri ay qoysas badan ay ku wada nool yihiin oo qolqol loo kaleeyey marka mararka qaarkoodna dadka dibka sameeyo waxaa dhici karta qof guri degan in qof u yimid ay tahay marka nidaamka meesha ka maqan waxay tahay kiraystaha keliya in aan la fiirin ee la fiiriyo sidoo kale dadka martida ahoo qofka u imaanayo iyo mas-uuliyadda uu ka qaadi karo waana wax la samayn karo oo haddeer aan dhihi karo haddii maamulka gobolka banaadir ay usoo jeestaan oo si fiican ay rabaan inay u jarjargeliyaan ay samayn karaan laakiin midda ugu weyn waxay tahay ilaa la helo tobantiiliyo rasmi oo subaxii guddoomiyaha degmada markuu degmada soo fariisto uu helayo warbixinta 10 guriba wixii ka dhacay waa way adkaanaysa sidoo kale waxyaabaha aan ka shaqaynayay oo aan isleeyahay amniga way ka qayb qaadan karaan waxaa ka mid ah adres in gurigii uu leeyahay sumadaasna wadadiina ay sumad leedahay
sababtoo ah qofkii haddii uu meel tilmaamayo waa inuu dhihi karo waxaan taaganahay laanta xaawataako sadeelaha shanaad waa inuu dhihi karo. mid ka mid a magaalooyinka soomaalida ee ay ka hirgashay darisayntu waa magaalada garowe. garowe waa magaalo aada uga yar muqdisho, sidoo kalena bartilmaameed joogto ah uma ah ururka al-shabaab. hase yeeshee haddana taariikhda weerarada al-shabaab waxay muujinayaan inay weeraraan meeshii ay fursad ka helaan. garowe haddaba waxay tusaale u noqon kartaa magaalooyinka wada shaqaynta rayidka iyo ciidamada amnigu ay lafdhabar u tahay sugidda amniga, sida uu sheegayo Axmed Siciid Muuse oo ah duqa magaalada garowe. isku xirnaanta dadka, maamulka dawladda iyo ciidamada amniga si fiican baa loo wada shaqeeyaa. meesha ugu muhiimsan oo shaqada qabataana waa dadweynaha oo u abaabulan xaafadaha, ka warhaya cidda guryaha degaysa, maxaa la yidhahdaa cidda kusoo biidha, qofkuu yahay, kadibna wixii ay ka shakiyaan ciidamada amniga la kaashada. halkaasaa maaragtay qofkii markaa baaritaan lagu sameeyaa. magaalada markay dadku soo gelayaan, gaar ahaan dadka dhalinyarada ah ama aan la dareemo socodkooda inuusan socod isku aadan ahayn, ciidamada amniga ee kontaroolada jooga way dejiyaan, waraysigay ka qaadaan, waxay ka qodaan magacyo, sawirraa laga qaadaa, markaas kadib baa la sii daaya haddii la aqoonsado, haddii kalena hay-adaha baarista lagu wareejiyay. sidee lagu ogaadaa qofka guri cusub ka karaysa magaalada? xaafadda ama deriska uu ka tirsan yahay ayaa ogaada. hadday aqoonsadaan oo qofkii uusan qof dhibaato dadka ku haya uusan ahayn, ay u arkaan de waa caadi oo ma gudbiyaan oo cid nooma sheegaan. laakiin hadday ka shakiyaan la aqoon waayo, deriska la degan guriga haddii qol ka kiraystay, kuwaasaa maaragtay waxay u gudbiyaan ciidanka waaxda ka sarreysa u gudbiyaan, kadibna ciidankaa loo gudbiya. xaafaduhu waxay leeyihiin waxay u qaybsamaan waaxyuhuna waxay u qaybsamaan derisyo. deris walbaaba isaga ayaa xogtiisa hoose xaafadda kala qaata, kadibna guddoomiye xaafadeed bay leeyihin, guddoomiyaha xaafadeed bay la wadaagaan. guddoomiyaha xaafaduna wuxuu la wadaagaa ciidanka booliska wixii laga shakiyo. ciidanka boolisku report subaxlaa bay soo saaraan. ciidanka booliska subax walba report bay waxay siiyaan madaxda ka sarreysa degmada iyo gobolka. caawa howlgalkii la sameeyey, meelihii la maray, wixii la helay, waxaa hadda caawa xiran dadkii, waxa la sii daayey, intaasoo dhan warsubxeedka ayaan ku helnaa. culayska ugu tirada badanna xaafadaha ayaa qabta. marka saad ii sheegtay amniga magaalada waxaa gacanta ku haya booliiska. sax. miisaaniyadda booliiska ka sokow miisaaniyad amni oo gaara miyaa jirtay magaalada garowe leeda? magaalada garowe waxay leedahay dhaqaale gaar ah oo loogu talagalay amniga iyo bilicda magaalada oo dawladda dhexe bixiso. kuwaasaa loogu talagalay in lagu hagaajiyo amniga magaalada. marka miisaaniyaddaasi way ka duwan tahay kharashka booliiska? kharashka booliiska iyo dakhliga dawladda hoose ee cashuuraha kasoo gala labadaba waa ka duwan tahay, mid loogu talagalay oo gaara. dhibaatooyinka muqdisho waxaa kaloo ka mid ah in dadka weerarka geysanaya ay wataan aqoonsiyo been abuur ah. sidee ayay garowe dhibaatadaasi wax uga qabteen? annaga dawladda hoose ee garowe waxay soo saartaa aidiyada system adag baa loo maraa. systemka loo mara waxay tahay qofka waa in la aqoonsadaa. hadda marka si kale oo badan laguma aqoonsado. waxaa la raadiyaa nabadoonkiisa, waa inuu yidhahdaa qofkaasi anaa aqaana, wuxuu ka tirsan yahay dadkaan nabadoonka u ahay. dadku hadday yihiin dad deegaankan asalka joogi jiray iyo hadday yihiin dad soomaalida kale soo degtayba, waxay leeyihiin isimo iyo nabadoono iyo madax bay leeyihiin. madaxdoodaasi qofkii ay yidhaahdaan qofkaa annaga naqaanaba waxaa la siiyaa oo damiinka ah, dadkaasa idga la siiya. qofaan idga kastaa loo sugin lama siiyo annaga xagga iyaga. idiyada kale oo meelaha kale laga bixiyana badana iyaga haddeer aad ba uma ictimaadna. waxaan ictimaadnaa wixii kaloo baaris oo kale. khubarada amnigu waxay leeyihiin si muqdisho amnigeeda gacanta loogu qabto waa in baraha kontaroolada la dhigaa qalab sawira rarka saaran baabuurta, iyo in la badiyo baraha kontaroolada ee ku wareegsan magaalada, in la diiwaan geliyo dadka magaalada ku nool, in la tira koobo baabuurta iyo guryaha, in la helo teknolojiyo lagu baaro baabuurta, isla markaana aqoonsi la bixiyo kaasi oo aan la been abuuri karin. waxaa intaasi dheer in lala dagaalamo musuqmaasuqa laamaha amniga dhexdooda sida ay ku doodayaan khubarada amniga, iyo sidoo kale in lala dagaalamo dhexgalka al-shabaab ee laamaha amniga iyo hay-adaha dawladda. dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinah inaan la xiriiray mas-uuliyiinta magaalada muqdisho iyo kuwa booliiska si ay uga qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee ay ku gacan sayreen. marka ugu horreysa ee oggolaadaana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkan galka baarista.